maanta oo axada taariikhduna ku beegan tahay 9 bisha 7 ee Rajab 1442 oo ku aadan 12 bisha 2 2021 waxa Muqdisho ku xijaabtay Allah u naxariistay Sheekhi weynaa Sheekh Xaaji Daawud Xaaji Cilmi Cariif sheekha ayaa waxa dugtiisa ka soo qayb galay culimada diinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo dad weynaha qaybahooda kala duwan ربنا حريستي جنه ugu deeqay waxa Sheekh Xaaji Daawud salaada janaasada lagu dukaday masaajidka Xaaji Dalfac ee degmada Hurwa halkaas oo ku sugnaayeen kumanaan dad ah oo ku tukaday salaada janaasada Allahu akbar Assalamu alaykum wa rahmatullah Assalamu alaykum wa rahmatullah kadibna sheekha waxa loo soo galbiyay mawlci Xaaji Daawud oo dadka ku tarbiyeen jiray halkaas oo iyana ay ku sugnaayeen dadweyne fara badan oo ku dukaday salaada janaasada kadibna sheekha aaskiisu halkaas oo ka dhacay waxa sheekha dadkii ay isla soo qariibeen wax badan ka oga kamida Sheekh Cabdikariin Xaaji Axmed waxaana uu mudaris ka yahay mawlci Xaaji Daawud muddo ka badan 10 sano sheekha ayaa waxa uu naga sheekaynayaa waxyaabaha uu ka og yahay iyo sida uu jeclaa inuu kaalmeeyo dadka fuqarada ah xaajigani awalan waxaan uga tacsiinayaa ummadda muslimiinta ah maxaa yeelay xaajiga wuxuu ahaa nin muslimiinta oo dhan ay u siman yihiin wuxuu ahaa nin nabigeenna calayhi salaatu wasalaam sifadii uu noo sheegay ku tilmaamnaa almuslim aqul muslim muslimka walaalkiisii waaye waxaa ka mid ah xaajiga tilmaamihiisa aad u cajaa'ibta badnaa wuxuu ahaa abuducafaa walmasaakiin masaakiinta iyo ducafada aabbahooda u ahaa wuxuu ahaa nin aad masaakiinta iyo ducafada u soo dhoweeyo wuxuu ahaa mawliciisa meel lagu barto diinta Ilaahay lagu barto Sheekh Maxamed Maki Sheekh Cabdiraxiin Sheekh Uthman Sheekh Xasan Macallin waxa uu ka sheekeynayaa sheekha oo aad isugu dhawaayeen waxyaabihii uu diinta u soo qabtay iyo sida uu mar walba ugu dadaali jiray cabsida Alle inuu dadka masaakiinta kaalmeeyo Xaaji Daawud Allah u naxariisto rahmatul abrar Allah siiyo khalifa wa hay khalif sheekha nin weyn oo khaliif ah oo wuxuu ahay طريقة أحمدية أكوين أوهاي قادري رفاعي كل لمدة هاي وحفظ طريقة لي لأنما يأكتس كوين ته أوهاي أولادي أهلك كريه كما تجينه دروغ صوفي ونمو كتجي حاجة إلى هنا سمر الله نقصيه سمر الله نقصيه أولاد أنت أنا أقارن مكة أنت أنا أقارن أفرتان واحد محمد سليمان عبد الكريم عبد الرشيد الله نحريست عثمان صفع وقول جل الله نحريست المها كلمة برا أنا وضنك لكن كوانا جوغان وشيخ محمد مكي ka sheekeynaya in sheekhu uu ka dardaarmay wilaayada iyo cidda isaga dabadii la wareegi doonta xaajiga waa dhinta Allah u naxariisto waa dhuuntay sabar iman Allah naga siiyo badalkiisa magaca xagga dariiqada Cabdirashiid ah heer xaaji aabahoodna asaga xaajiga soo na dhihi jiray waay asaga lagu og yahay طريقة هوغان كذا صاروا وجهه الشيخ محمد الشيخ عبد الرحمن علي وحنا كشكينا يا أسقو هرير التاجين علماء كلا كسر قاب جش أسكا وحيابي ونكسنا ودين تقبتي الله ونحرسته الشيخ حاج داود حاج علم عرف حاجة وحن يقين صنع هاي إنه كم ذي ضدك الجنازة وذا الدين الراعو لبناف كله هلا إمام أحمد بن حنبل جيريودي قبر جيسي على جيي محال كل أنت يا ليلي markaas uu Ilaahay waa ii dambi dhaafay laakiin dambi dhaafka Ilaahay aniga oo ii dambi dhaafay waxa iga farxad badneed waqafara li kulli man tabi'a janaasati inti janaasadeeda soo raacday oo dhanna waa loo dambi dhaaf xaajiga adduunyada korkeeda uu nagu dhaafay la shakka annahu shaafi'un dadka shafeecay inuu kamid ahaanay qiyaamo maalinta shakki ma laha xaajiga dadka uu u shafeecay Allah naga dhigo sidoo kale Sheekh Cabdiraxiin Sheekh Axmed Daahir Sheekh Xasan Barsame oo ay sheekha isagan aad isugu dhawaayeen wax badan ay wada kulmeen ikhwaani fillah magacayga waa Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Daahir Sheekh Xasan Barsane Allah u naxariiso waxaan ka tacsiinaynaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timid aabahayn Xaaji Daawud Cilmi Cariif oo isagu ahaa caalim u soo istaagay una soo baxay
kor u yeelista diinta islaamka oo isagu aad iyo aad u ahaa nin muxib ah oo u taagan saacad kasta iyo mar walba u taagan weynaynta diinta islaamka. sheekhu wuxuu ahaa nin aad iyo aad ugu dadaala diinta. waxaad u jeediin oo gadaashayda ka muuqda waa looxdii qur'aanka kariimka lagu baranayay. meel walba sida ayuu u weyneeyey, haddii ay tahay dhallinyarada yararka ah, carruurta iyo dhallinyarada 20 jirrada ah ayuu aad iyo aad u soo caruurinayay, iyo dariiqooyinka suufiyada aabbahood ayuu ahaa. waxaad u jeedaan sida dadka uu ugu bari jiray diinta oo u jeclaa dadka inuu ku dadaalo, isagoo furay mawlacyo, dugsiyo iyo meelo dadka masaakiinta lagu quudiyo. sheekh daa'uud, sheekh axmed daahir, sheekh xasan barsame oo isaguna sheekha tacsi u gudbinaya. sheekhan Allah u naxariisto, ilaahay shakraadku waa mudan, su'aasha la fududeeyo, qabriga Allah waasiyo. aniga qalbigayna waa mamruga, inayna waa ilmeynayeen, ilaahay wax iskala leeyahay ma wax kala madahayno. marka insha Allah ta'ala qabriga Allah waasiyo. Allah u naxariisto sheekh xaaji daa'uud, sheekh xaaji cilmi cariif waxa uu ahaa tiir weyn oo ka baxay culimada Soomaaliyeed ee Ahlus Sunnah wal Jamaaca. shabakada wararka al-Mahmuudiyya magaalada Muqdisho.